السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا السلامي دمان انت كحيران صوبا ميديا جروب. فضلا هذا نوع عصبتها سبسكرايب تسارو لايك تتابع سينا شير جراي سيادة نقطة داوضها ugu horeeya xogaha aan baahin. Haddii aad horey noola joogtana waad ku mahadsantahay la joogitaankaaga. Mahadsanid muddooyinkii u dambeeyay barnaamijyadeena hakad ayaa ku jiray sababo jira awgood. Way hadda ka dambeeyay insha Allah barnaamijyo aad iyo aad u xiiso badan ina farxad gelin doona ayaan idin soo wadnaa nala jooga insha Allah. barnaamijkeena maanta waxaan uga hadli doonaa cudurka halista badan ee dunida ku sii faafaya ee coronavirus. Cudurkaasi oo hadda gaaray in ka badan 70 wadan. Waana cudur dunida faraba'an ku haya dhaqaalihii dunida oo dhan ayaa dhulka galay. Ganacsigii iyo isku socodkii dunida ayaa sii yaraanaya. Wadamadii ayaa xuduudihii kala xiranaya. Waa cudur laga yaaban yahay. Wax daawaan aan ilaa hadda loo hayn. Sida aad la wada socoteen dowladda wadanka Sacuudiga shalay waxa ay ku dhawaaqday inaysan sanadkan wax imaanaya haba yaraatee aysan jirin xaramka ama Kacbada. Masaajidkii xaramka wax ku tukan kara salaad sidoo kale malahan oo waa haawanaya. Sawiraan baraha bulshada la soo galiyay waa masjidkii xaramka oo xitaa hal shakhsi uusan joogin. Sababtaas ma garanaysa waa cudurka halista badan oo dilayga ah ee coronavirus oo dunida faraha ba'an ku hayay. Waxa laga cabsi qabaa waa cudurku waxa lagu kala qaado oo aad iyo aad u fudud. Qofku hadduu 2 mitir meel ku jirta soo istaago neeftiisa ayaa ku soo gaaraysa sidaas ayaadna ku qaadaysaa. Soomaalidu waa dad isjecel, waa dad ismarxabeey. Marka ay isku yimaadaan waa dad gacmaha isku salaama, waa dad xabadka isgariye. Walaal haddii aad joogto wadamada looga cabsi qabo cudurkan ama aad joogto meel ka baxsan Soomaaliya waxaan kaaga digaynaa inaad ku salaanto dadka gacmaha. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. qofka dheh ka siko xaggaas kala hadal maas garaha afka xiro inta badan waxba saas ma cariyo laakiin waa uun difaac wadoo ku roon yahay waa laga yaabaa inuu wax ka difaaco. Marka Soomaalideena marka waxa uu hadda anaga cudurkan zaa'idka noo sii saameynayo waxa waaye wiil Soomaaliyeed oo taksiila oo ku nool wadanka Ingiriiska ayuu ku dhacay cudurkaani. Sababta uu dhacay wiilkaas ma garanaysa. gabar ka timid Isbaanishka ayuu waxa uu ka soo qaaday airportka. Waxa uu geeyay meeshii ay u socotay. Waa intaas oo kaliya. Taksiga waad garanaysaa qofka markuu soo raaco qaybta dambe ayuu fuulaasna darawalkii waay. Intii yarta ahayd airportka ilaa meeshii u socotay uu geynayay ayuu ku qaaday wiilkaas Soomaaliyeed. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan weydiinaynaa caafimaad inta muslimiin oo cudurkan la dhibtoona sidoo kale Allah subxaanahu wa ta'aala ayaan caafimaad u weydiinaynaa. Sidoo kale waad ogtihiin magaalada Wuhan ee uu cudurkan ka bilowday wadanka China waxaa ku xayiran 45 dhalinyaro Soomaaliyeed oo noloshooda wax ay ku sugan tahay cid ka warqabta la arag. Cudurku hadda wax uu soo ritay lama sheegin laakiin waa dad go'doona. Cuntadii iyo baadkii intuba ay ku yar yihiin wax ay cunaan ay aad u yar tahay. Marar waqti yar oo dhifa oo dad dowladda dhinaceeda ka socda ay u galayaan. Waad dareemi kartaa dad aan banaanka u bixi karin, guriga aan ka degi karin. Waxa waaye cadaadiska iyo culayska ay leedahay wadamadii kale oo ay kala soo baxeen dadkooda laakiin wadamada dhibaatooyinka ka jiraan sida Soomaaliya kale, Liibiya kale wadamo badan adigu dhibaatooyinka jiraan dadkoodii kalama soo bixin oo awooddaas ma ay lahan. Tusaale ahaan oo kale hadda wadankan la leeyahay Imaaraadka Carabta waxay furtay hay'adan qaybdan oo qaabishan meel waxay u dhistay magaalada Dubai magaalo u dhow u dhistay waxay u diyaarisay dadka wadamada aan dadkooda la soo bixi karin inay dadkooda u soo qaado meeshaasna lagu daryeero dadka lagu karantiiro xaaladooda lagu socdo qofkii fiican gabadhi meesha laga sii gudbiyo. Marka wadamadii ay dadkii u soo qaaday Soomaaliya kama mid noqon waa nasiib darro aad u weyn. Way Soomaaliya iyo Imaaraadku xiriirkoodu muddooyinkii dambe aad iyo aad ayuu u xumay. Marka sidaas ayayna ku dhacday. Marka wiilkii Soomaaliyeed arrinkiisa inay waday Ingiriiska ku noolaay waxaa la dhigay isbitaalka waxaana ka mid noqday dadka dhibanaha ah cudurkan halista badan ee coronavirus. Sidoo kale cudurkaani waa cudur dunida oo dhan ay ka yaaban tahay. China ayuu ugu halis badan yahay. Iran iyo Talyaaniga ayaa ku soo xiga oo labadoodu 120
wax ka badan ayaa ku dhimatay, inta qabtaana kasii badan. gaalkii gaalada ugu weynaayo Pope Francis oo baadarigii weynaay oo Francis waa uu ku dhacay isku soo bax maalin la weetay wadanka Talyaaniga ka dhacay oo dadka diintaas haysta oo kula hadlayay ayuu ka qaaday. dadkii isku soo baxayay qof kamida ayaa cudurkaas qabay, sidaas ayuuna ku qaaday, waa uu la xanuunsan yahay. marka warar aan la hubin oo weli aysan aan la xaqiijin waxay sheegayaan dhaxal sugaha Imaaraadka Carabta inuu asaga laftirkiisu oo cudurkaan meel yaal leeyahay oo la xanuunsan yahay. sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dhanka dumarka ee Iran oo ku dhacay 4 qof oo baarlamaanka ka tirsan oo Iran oo ku dhacay. sidoo kale waa dareemi kartaa marka cudur wasiirka caafimaadka ee Iran sidoo kale waa ku dhacay. waa dareemi kartaa marka cudurka wax uu deynaya ma jiraan. dadku meelaha isku yimaadaan oo maqaayadaha iyo meelaha la midka ah badana hala yareeyo. tag wax ka soo gado, waxaad ka soo gadanaysa ka soo gado, inta badan digtoonaaw, boqolkiiba boqol naftaada ka taxadar, waayo cudurkan waa cudur halis badan. ilaahay subxaanahu wa tacaala tala saaro markaad xaafadda ka baxayso. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa waaye adkaarta la akhristo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu sharta ka magan geliyo, adkaartaas akhriso. sidoo kale adkaaru sabaax wal masaa inta badan ha hilmaamin oo la soco oo waqti walba daa'im. sidoo kale waxa waaye salaad walba markaad tukato ilaahay subxaanahu wa tacaala alla subxaanahu wa tacaala ka magan gal. sidoo kale dadka muslimiintaana u duceey. dadka muslimiinta ee la dhiban cudurkan ama cudurrada la midka u duceey waa muhiim. taas adigana waa lagu soo duceeyaa oo dadka kale oo muslimiina oo muslimiinta u duceynaya ayaad ka mid noqonaysaa dadka loo duceynayo. marka waa inaad adiguna u duceysaa muslimiinta meel kastoo dhibaatooyin ku haystaan ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ka magan geliyo, ilaahay subxaanahu wa tacaala u naxariisto, u soo duceey insha Allah. marka cudurkan waa sida dadka khibrada ku xeelka dheer ay sheegeen. nabiga sallallahu alayhi wasallam hore ayuu u sheegay in cudurro noocan markay fitantu badato oo fasaadku bato ay imaan doonaan cudurro noocan oo kale oo aan daawo lahayn. waana ay dhacday, waayo nabiga sallallahu alayhi wasallam wax walba uu ballan qaado waa wax sax ah, waana ay dhacaya. waqtigu haba dheeraado laakiin waqtigeeda waa ay dhacayaan, waayo waqtigu wuxuu ahaa fasaadku markuu bato oo waxa waaye ay xumaantu soo daahirto, waxa waaye cudurro aan la aqoon oo aan daawo lahayn. awal cudurkan HIV AIDS iyo cudurro lamid ah oo aan daawo lahayn ayaa jiray. hadda waxaa yimid cudur muddo kooban qofka uu ku dhimanayo halistiisana wata, waana cudurkan coronavirus-ka. marka ilaahay subxaanahu waxyaabaha kale ee cudurkan waa laga qaaday leeyahay. waxaa la leeyahay shiinuhu ciqaabta ay dadka muslimiinta ah ee igoorka ay ku hayaan ayaa ah sababta ugu weyn ay cudurkan u qaadeen. waxa waaye waana dareemi kartaa qof muslim Allah subxaanahu wa tacaala caabudayo, u sujuuday ilaahay subxaanahu wa tacaala habeen walba u leelayo baryaya, qofka dhibaato ku haya inuusan wanaag la kulmeyn. waxaan rajeeyaa shiinuhu inay ka tanaasuli doonaan dhibaatada ay ku hayaan muslimiinta. sidoo kale kamida dooliga iyo waxyaabaha masaska iyo waxyaabaha Allah subxaanahu wa tacaala uu xarimay. ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu xarimayo xigmad ayaa ku jirta, waayo Allah subxaanahu wa tacaala bini'aadanka asaga abuuray, xibin walba oo jirka kamidana waxa ku wanaagsan oo haday cunto u wanaagsan Allah subxaanahu wa tacaala asaga ayaa og. wax alla wixii bini'aadanka u wanaagsanay ilaahay subxaanahu wa tacaala waa u xalaaleeyay, wax alla wixii bini'aadanka u xumaayna ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka xarimay. Allah subxaanahu wa tacaala cid ugu aqoon badan bini'aadanka oo asagu abuuray oo waxa waaye waad garanaysaan bini'aadanka sida Allah subxaanahu wa tacaala u abuuray. marka hore waxa waaye bini'aadanka horta carra asalkiisii hore laga abuuray, ka bacdi waxa waaye kulley aadam ka la abuuray, xawa laga feertiisa laga abuuray. xawa iyo aadam ay isku tageen menidoodii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka abuuray waxa waaye bini'aadanka kale ee dadka kale. sidoo kale adiga waxa waaye waxaa laga abuuray intoo kale. ilaahay subxaanahu wa tacaala marka menida aad aragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dhigay waxa waaye jir qayb oo jir waxa waaye xidido, lafo, maqaar, waxa waaye ruux, wax walba ilaahay subxaanahu wa tacaala intaas aad aragtay ka dhigay. wax alla wixii u roon bini'aadankaas asaga ayaa nooga aqoon badan.
asagana cilmi leh wax alla wixii bini aadan u wanaagsanaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa xalaaleeyay markii Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu xalaaleeyay wuxuu xaaraantinimeeyay haddii la xalaalaysto oo xalaal laga dhigto dhibaatooyinkan iyo kuwa ka badan waa laga qaadayaa Ilaahay inta muslimiina cudurkan ha ka badbaadiyo wiilkaas Soomaaliyeed hadda ku xanuunsanaya London Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha caafiyo annagana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hanaga haayo Soomaaliya dhibaatooyin badan ayaa ka jira waa wadan soo kabanaya hadii cudurkan iyo wax lamid ay ka dhacaan halisteeda ay leedahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryaynaa inuusan soo gaarsiin intii muslimiin ah cudurkan qabtan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ugu baryaynaa inuu caafiyo wabillahi tawfiiq assalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh